حتى كسوغيس لما قلنا الشرف يعزو ما انت واقع سيدي ددكا او غلين dhibaatooyinka loo geystay dadkii deganaa tuulada loo yaqaano jameeco waxaana dhibaatadaas u geystay gadoomiyaha degmada Balcad iyo ciidan ka amar qaato cali guudlaaw madaxweynaha ku xigeenka waxaan idin sheegayaa dhibaatadan soo jireenka xadaarta inaad ka baxid waa inaad sameeysaa ficil waa inaad sameeysaa waqtigaaga waa inaad gelisaa markastana xasuusnaa 26 sano hadda la soo dhaafay dhibaatadan mid dhamaanaysa ma aha ilaa ay adiga aad ka sameeysaa qadiidaada wixii tahay iyo adiga inaad ismoojisid waqti badan aad gelisaa saaxiib badan waa inaad u weysaa inaad adiga jareer aad tahay inaad dhibaatada ugu geysto inaad saaxiib badan waa inaad u weysaa iyo sharaf iyo ciise aad ku lahayd lama goodlaha dhexdiisa waa inaad u weysaa laakiin haddii adiga aad sugayso sawir yar Facebook la soo saaro laag lagu saaro inta sugayso ma sha Allah lagu dhahay mise mid lama goodle ee hel ay isdhaysid heli maysid jareer ee tahay jareernimadana wax ka bedelay ma jirto lama goodle sharaf iyo ciise aad ku sugayso kama helaysid weligaa kama heli doontid laakiin waxaan rabaa walaalkaaga inaad u dhaqatid dhibaatada 24 saacana dhammaan habeen iyo maalin dhibaatooyinka oo ku soo noqnoqday gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Hirshabeelle isku sheegtay dhibaatada dadkayga ay ku hayso mid weligay aan iloowi doono ma aha mana iloowi doono hawsha aan hayna weligay ma joojin doono sidaan aan ugu doono hadduu Ilaahay idmo midda labaad waxaan rabaa inaan kala hadlo qowmiyadda jireer weyn dadka daciifada oo marka qaar ku hadalada on maxalla si bilaashka ku soo hadlay waxaan leeyahay guul dara ay tahay aniga la waxaan ka dareemayaa adeeg badan ayaan ka qaadaa insha Allah